ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo galinkii dambe maalinimadii shalay saxaafadda soo hor fariistay ayaa ka jawaabay su'aalo kala duwan oo ay wariyeyaashu weydiinayeen war saxaafadeedkan oo ahaa mid la qorsheeyay inuu dhaco 10kii bishan aynu ku jirno ayaa dib u dhacay kadib markii dalkaasi Itoobiya diyaarad laga leeyahay ay gashay shil aad u xun shilkaas ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 150 ruux su'aalaha ugu muhiimsan ee la weydiiyay ayaa ahaa kuwa la xiriira barakacayaasha xiriirka EPRDF Tigreega iyo Axmaarada OBDB iyo ADB saraynta sharciga arrimaha dibadda ammaanka dhaqaalaha doorashooyinka tirakoobka iyo xaaladda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya oo ah mid cakiran mar wax laga weydiiyay dhanka saraynta sharciga iyo Abiy Ahmed ku jawaabay inta badan dadka Itoobiyaanka ay waxay u barteen xukuumadda qalafsan oo cidii ka hortimaada gacan bira ku qabta awood xad dhaafan oo adeegsada balse taasi hadda kama jirto guud ahaan dalka Itoobiya laakiin xaqiiqda ayaa ah inaan qabanay hawlo badan oo saraynta sharciga lagu sugayo tusaale waxa uu soo qaatay deegaanada kala ah kan Soomaalida Dabuubka Binshaangulka Oromada iyo duleedka Addis Ababa intaba waxaan ka qabanay arrimo muhiim ah oo la xiriira dhanka amniga ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed mar wax laga weydiiyay xaaladda magaalada Addis Ababa oo ah mid cakiran iskuna haystaan qoomiyadaha Axmaarada iyo Oromada ayaa waxa uu ku jawaabay arrinta magaalada Addis Ababa hadda ka taagan waa arrin xasaasiya dastuurkuna waxa uu dhigayaa in maadaama ay ku taalo bartamaha gobolka Oromiya xuquuq gaar ah laga siiyo deegaanka Oromada balse waa magaalo aan wada leenahay ayuu yiri Abiy Ahmed loona baahan yahay in si nabadgelyo ah loogu noolaado Abiy Ahmed oo ka jawaabaya su'aal la weydiiyay oo ku saabsan dhanka tirakoobka ayaa waxa uu yiri waxa jira guddi heer qaran oo hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Demeka Mekonnen kuwaasi oo cod buuxda ku ansixiyay in dib loo dhigo tirakoobka marka ma ahan in loo arko tabardarri dhanka dawladda kaliya waa go'aan la isla qaatay ayuu yiri Abiy Ahmed ma uu sheegin xilliga la qabanayo tirakoobka dalka Itoobiya oo 10kii sanaba mar la qabto arrinta tirakoobka ayaa arrin muhiim u ah doorashada soo socota sidoo kale tirakoobka ayaa dib loo dhigay kadib markii laga cabsaday qalalaase ka dhex qarxa qoomiyadaha iyadoo ay jirto isqabqabsi xoogan oo u dhaxeeya qoomiyadaha Axmaarada Oromada iyo Tigreega Soomaalida Anfarta iyo Oromada kuwaasi oo dhamaantood ku salaysan soo hidimaha ay wadaagaan goboladaasi mar wax laga weydiiyay arrimaha Axmaarada iyo Tigreega Oromada iyo Axmaarada iyo xiriirka EPRDF inta badan waxa uu ku dhaafay hoga tusaaleyn oo muusan si toos ah uga jawaabin walow uu sheegay in EPRDF uusan wax dhib ah oo buurani ka dhex jirin balse wuxuu carabka ku dhuftay inay jiraan kala aragti duwanaan u dhaxaysa xisbiga EPRDF doorashada oo wax laga weydiiyay ayaa markii ugu horeysay Abiy Ahmed bixiyay jawaab muujinaysa inaysan doorasho dhacayn sanada soo socota ee 2020 waxa uu sheegay inay jiraan in ka badan 108 xisbi siyaasadeed kuwaasi oo dhawaan saxiixay ahdi qarameed isla markaasna ay 108 xisbi oo EPRDF ay ku jirto ay ka go'aan gaari doonaan xilliga doorashada la qabanayo arintani ayaa ah mid ugu saameynta badnaan doonta siyaasadda toddobaadkan ee gudaha dalka Itoobiya iyo xitaa beesha caalamka maadaama ay doorashada qabsoomidooda ay tahay arrin dastuuri ah oo dawladda u taala isla markaasna uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya muujiyay suuragalnimada in doorashadu dib u dhacdo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo wax laga weydiiyay dhanka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waxa uu sheegay in guula ballaaran laga soo hiyay walow intooda badan uu si guud oo duuduuba uga hadlay marka laga reebo arrinta Eritrea iyo deymo badan oo laga helay dalka China halka uu sheegay in dawladda Mareykanku ay kordhisay deeqihii ay siin jirtay dalka Itoobiya arrimaha barakacayaasha oo wax laga weydiiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa intooda badan jawaabtoodu waxay ahayd isdifaac waxaana aad u dhaliilay qaabka ay saxaafaddu u tabiso wararka barakacayaasha isagoo sheegay inaysan jirin cid gaajo ugu dhimatay isla markaasna aysan waxba ka jirin in 3 milyan oo ruux ay barakaceen intuu xilka hayay oo ahayd muddo sanada waxa kale oo yiri Oromada Gujisoon ku nool
markaan la kulanay waxay noo sheegeen inaysan garanayn waxay la qaxeen qoomiyadda Gediyo isagoo intaasi raaciyay inay odayaasha Guji ee Oromadu u sheegeen inay dad badan oo sheeganaya inay halkaasi ka soo barakaceen aysan ahayn kuwa ka soo jeeda ayuu yiri Abiy Ahmed ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa TV-ga Iset ee leedahay Axmaarada waxa uu siiyay jawaab ku wajahan hadal dhawaan ka soo yeeray maamulka TV-gaas oo ah inay hayaan cod 3 saacadood ka badan oo sir ah oo laga duubay xilligu Abiy Ahmed ahaa madaxa INS-ta waxa uu yiri Abiy Ahmed isagoo careysan cidii xaqiiqda haysa bulshada ha u soo bandhigto inta badan su'aalaha la weydiiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee uu ka jawaabayay habeennimadii xalay ayaa ahaa kuwa horey loo sii qorsheeyay mana jirin wariyaal madax bannaan oo si toos ah u weydiiyay su'aalo ka baxsan kuwii qornaa